asalaamu calaykum ciraaq iyo soomaaliya waxaan maanta ka hadli doonaa meelay isaga yihiin iyo waxyaabay wadaagaan wadamada soomaaliya ciraaq oo ah laba wadan oo muslim ah kuna kala yaala qaarada afrika iyo aasiya oo ah labada qaaradoodii ugu weyn dunida kusoo dhawaada muuqaalka ciraaq iyo soomaaliya ayaa laba wadan oo ka tirsan jaamacadda carabta iyo weliba wadamada iskaashiga islaamka waana laba wadan oo dhaca qaaradaha afrika iyo aasiya haddaba maxay isaga yihiin labadan wadan ciraaq waxay ka kooban tahay 19 gobol halka soomaaliyana ay ka kooban tahay 18 gobol ciraaq waxaa mara laba webi oo kale ah webiga dijle iyo furaad waxaana ciraaq loo yaqaanaa bilaadu maa bayna nahrayn ama dhulkii u dhexeeyay labadii webi halka soomaaliyana uu mara laba webi oo kale webiga shabeelle iyo juba soomaaliya waxaa muddo 20 sana maamuliyay maxamed siyaad barre isagoona gaarsiiyey horumar ballaaran intuu xilka hayay ilaa ay soomaaliya gaartay inay qorsheynaysay 80 inay soomaaliya gaarto isku filnaansho taas oo alle uusan qadarin waxaana ka soo hormaray oo dhacay dagaalkii 77 ee lala galay Itoobiya oo haysato dhul Soomaaliyeed dagaalka oo Soomaaliya ku keenay hoos u dhac dhaqaale iyo weliba samaysanka jamhada ka soo horjeeda dawladii xilliga halka Ciraaq uu maamuliyay Saddam Hussein muddo ku dhawaad 30 sano isagoona Ciraaq gaarsiiyey horumar ballaaran xilli ay gaartay ciraaq inay ku fikirto inay samaysato hubka nukliyeerka Soomaaliya waxay gacantiisa ku burburtay maxamed siyaad bar kadib jabhada dalka ka curmay dagaalkii 77 kadib jamaadahaas oo garab ka helaya dawladda Itoobiya halka ciraaq ay burburtay isagoo xilka haya Saddam Hussein kadib duulaan ay ku soo qaadeen wadamo isbahaysiya oo horgacayay wadanka Mareykanka 2003 Saddam Hussein ayaa markuu duulay wadanka Kuwait isagoona qabsaday guud ahaan Kuwait kuna dhawaaqay in Kuwait tahay gobol ka tirsan ciraaq qabsashadaas oo ay markii dambe soo fargeliyeen wadamada reer galbeedka lagana saaray Saddam Hussein iyo ciidankiisii taas oo ku keentay in la jabiyo ciidanka Ciraaq Soomaaliya ayaa dagaalkii 77 waxay ku jibid ciidamadii xabashada kolkii hore ilaa ay Itoobiya u habar wacatay wadamadii midiga Sofiyeeti la isku oranayay oo Ruushku hogaaminayay taa oo keentay in Soomaaliya lagu soo jabiyo dagaalkii kolkii dambe ciraaq ayaa mar ahayd awood ka dhex muuqata bariga dhexe halka soomaaliyana ay ahayd awood ballaaran oo laga hiibaysto kana dhex muuqata guud ahaan qaaradda afrika xilligan aynu joogno waxay soomaaliya ka soo kabsanaysaa burbur iyo qaran la'aan 30 sano kadib halka ciraaq ay iyana ka soo kabsanaysa burburkii iyo la dagaalanka kooxda ISIS oo ay sheegeen in laga cirib tiray wadankooda halka soomaaliyana weli ay ka jiraan kooxahaas